sida bulshooyinka caalamka oo dhan Soomaalidu waxay leedahay sawir maskaxeed oo bulsho ahaan ay iska aaminsan tahay waxay isu taqaanaa mujtamac ka maran kala sarreyn dabaqadeed iyo dulmi bulsheed inay yihiin duud wada dhashay oo wadaaga af dhaqan iyo diin una ku yar yahay kala duwanaanshuhu waa sawir soo jiidasho leh iyo muuqaal bilicsan balse si dhow marka diiradda loogu eego waxa caddaanaya in sawirkaasi yahay dhalanteed iyo ismoodsiis amaba isyeel Soomaalida waxa uu qarsoon mid ka mid ah dulmiyada ugu qotada dheer uguna huuqda weyn caalamka dulmigani waa takoor iyo faquuq loo geystay laguna hayo beelo ka mid ah qoyska Soomaaliyeed beelo la wadaaga afka dhaqanka iyo diinta kana tirsanaa bulshada Soomaaliyeed intii ay jirtay oo dhan iyaga oo u hayay kaalmo muhiim ah iyo adeegyo lama huraan ah waa jariimo soo jireen ah iyo dhaqan guun ah oo salka ku haya khuraafaad iyo sheekooyin barelay noocyo badan le kuwa diineed iyo kuwa dhaqan dhaqaale oo faca ka dambeeya u sii dardaarmo takoorkan waxaa la nool kumanaan iyo tobannaan kun oo Soomaaliya oo ku dhaqan gobol kasta iyo dacal kasta oo ka mid ah geyiga Soomaaliyeed waxa uu qaabeeyaa dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha xubnaha bulshada laga soo bilaabo dhalashada ruuxa ilaa gudgalkiisa waxaanu xadidaa fursadaha waxbarasho shaqo iyo nololeed ee qofka waxaanu taabtaa tafaasiisha ugu mudan nolosha gaar ahaaneed qofka oo ay ka mid tahay xulashada lamaanaha xagee buu ka yimid dhaqankan haybsooco sidee ayuu qaabeeyaa nolosha dhibanayaashiisa waa maxayna xuquuqda uu ku reebay dhibanayaashiisa maxaase lagaga bixi karaa dakharada gabooyaha dumadooda lala dhacay dawdhaafka yibirka iyo dalacsiga tumaalaha dulmanaha la qaybsaday digashada xanuunka leh deelqaafka boonta iyo dalmarow ma dhaadeen tani waa daami waa xaafadda ugu weyn ee beesha gabooye ka degto magaalada Hargeysa ishaadu markiiba waxay qabanaysaa bal weyn oo halis ku ah gebi ahaanba xaafadda laag biyo mareeno oo wado u ah qashin qub guryaha agtiisa iyo biyo wadhan afaafka guryaha nasiib darro dayacani kuma koobna xaafadan oo kaliya waxaa la wadaaga xaafad kasta oo beesha gabooye ka degto geyiga Soomaaliyeed duruufo nololeed oo qallafsan iyo bulshada inteeda kale oo xaaladoodu ka hooseyso ayaa dhammaan xaafadahani ka siman yihiin dayaca deegaanku waa astaanta muuqata ee sinaan la'aanta beesha gabooye iyo bulsho weynta inteeda kale sinaan la'aantani waa natiijada tooska ah ee takoorka iyo haybsooco soo jireenka ah ee deriska la ahaa beeshan taariikhdeeda oo dhan waxaan tilmaamaynaa inay tahay bulshadani bulsho ku dhaqan geyiga Soomaaliya oo dhan meel ay ku degan tahayba haddaan tilmaano Soomaaliland Djibouti Ethiopia Kenya Soomaaliya dhammaan way ku dhaqan yihiin waana bulshooyin runtaan oran karayo bulshooyinka ugu faca weyn Soomaalida weeye alxamdulillah kolay dhibkan asiibay dhib yar maaha waa dhib afa badan u geystay waa dhib aan oran karno runtii waxa weeyaan dhinac walba uu ka taabtay hadday dhaqan tahay hadday dhaqaale tahay hadday waxbarasho tahay hadday damiir tahay hadday tahay Allahu musta'aan iska dhaxalka bulshada dhan hadday tahay intaba waa baha dulmi taabtay weeyaan hadimooyinka haybsooca ee lagu hayo bulshadan ee dhan walba taabtay waxa ugu sii daran hanjabin iyo bahdilaad bariirta ka qaaday xubnaha beeshan aqoonyahanka iyo hogaankoodu siday ku sheegayaanna dhibaatada ugu weyn ee faquuqu waa juugaha iyo dhaawacyada nafsaani ee gaadhay shakhsiyadda qofka gabooye dadkii baan wali accept garayn badkood ninka la yidhi waxa laalayo wixii xun baa midgaana heedhe wax kastoo xun hadday sina tahay hadday khamri tahay hadday xumaan tahay hadday tuugo tahay hadday been tahay hadday dhac tahay hadday dil tahay all common word ayay u sameeyeen waxa dhan waa midgaan haddana adigii bay kugu sheegayaan midgaan ka sheekee kolka ilmihii waxaan ku koray markuu qalad yar sameeyo anaga fadhiiso waxaan midgaanka takoorkan aan diiniya dadnimo ku salaysanayna qofkii lagu hayaa bahdilaysa oo hankii ka dilaysa oo himiladii ka dilaysa inuu hogaamiye noqdo aan aqbali kareynin oo bulshadan waxaan kula dhaqmaysaa qayb ka ah inay xuquuqdiisa iman weyn kolka wixii ba ay ku koreen way ku koreen ayagiiba kolka dadkani social bay u baahan yihiin ayagaaba waalanba ruuxa ku dhashay ilaa habeenku dhashay uun la leeyahay midgaan oo waxa xun baa tahay heedhe imagine trauma qaadayaba ruuxu wuxuu u baahan yahay social buu u baahan yahay
dadku dad caadiya bay u arkaan maha caadi waxaan oo dhan waan istadhigariyey moogta wuu hadal badayey wuu sheeko badayey inuu isiibiyuu doonayaa wuxuu ogyahay dad aan accept garayn inuu ku dhex nool yahay moogta ma fahat inuu ka qosliyuu doonayaa humar u sameeyo tani waa natiijada tooska ah ee bahdilaad aflagaado cagajugleyn iyo cadaadis wehelaaha beeshan boqolaal sannadood siyaabo muuqda iyo kuwo doosoon oo leh kaftan dacaayado mahmaaho iyo maadsi ayaa bulshadan loo dareensiin jiray loona dareensiyaa quudhsi iyo inay ka hooseeyaan soomaalida inteeda kale segregationka waxaa ka mid ahayd qofka markay wax siiyaan waxbaba dee maysiin jirin xoolaba maysiin jirin markay qofku waxbuu dee u qabanaya shaqo u qabanaya bulshadii mujtamacuu la noolaa ilaa waa dad xirfadlayaale markay shaqo u qabtaan wax yar baa la siin jiray waxaa marka la siiyay haddana waa lagu caayi jiray waxay odhan jireen gallad midgan waa intuu gafuurku qoyan yahay oo macnaheedu looga jeedo wax weeye markaad wax siiso intaa aad wixii aad siisay kasii muuqdaan unbu abaal ku hayaa maanta dambe kiiba maha marka nolosha noocaasa bay ku noolaayeenoo waa la dakray qalbigoodii baa la dilay kumanaan sannadood baa dhaawac loo soo geysanayay oo qulubta looga soo geysanayay oo dadkaa la hanjabiyey oo noloshoodii maxay ahaatay la gaadhsiiyey heer aadaminimadu ay ka hooseyso mushkiladda haysataa waxa weeye quursi iyo habsooc joogta oo qoraxdii soo baxdaba la socda qoraxdii dhacaysana la dhacaa oo lagu hayo mujtamacaas oo aada la yaabaysa sidii ku nool yihiinba takoorku waxa uu sidoo kale aada u xadiday fursadaha nololeed ee dadka ku abtirsada beeshan soomaalida oo ka mid ah dadyowga ugu saboolsan caalamka ayaa guud ahaan beeshani ugu sii hooseysa inkastoo aan udoris cilmiyeysan ilaa hadda lagu samaynin xaaladan saboolnimo waxaa marag u ah wadciga qallafsan iyo bayhoofka ka muuqda deegaanada beeshan tusaale kale waxa ah siday uga maqan yihiin mulkiyadda ganacsiyada waaweyn ee soomaalida saqaf shubah iyo derbi adag ayaa takoorku u yeelay horumarka ay bulshadani gaadhi karto caqabada koowaad waxa weeye waa dhanka dhaqaalaha dad dhaqaaloodu kobcsan yahay maaha oo la jaan qaadi kara waxa weeye darafyadii kale ee bulshada shilinkoodu waxa weeye marka dhan laga eego caqabadaas waxay keensanaysaa in qofku shaqo tago subaxii laakiin habeenkii isagoo oo subaxii mara sida shimbirta subaxii haddana waxa weeye tawakkal cala allah intuu yidhahdo waxa weeye uu haddana suuqa u baxo maxamed ibraahim kabaha ayuu ku tolaa suuqa gobonnimo ee magaalada hargeysa 40 sano ayuu ku shaqaynayay xirfadan oo uu ka dhaxlay aabihii oo isna 60 sannadood ku shaqaysan jiray waxa uu soo gaadhay berisamaad xirfadiisu qiimi weyn lahayd oo ay ku filnayd uuna u xidhnaa suuqa kabaha ee dalku xilli ayuu soo joogay dalka aan lagu xidhan jirin kaba ayna samaynin xirfadlayaasha beeshiisu kabaha jaban ee ay soo qubaan warshadaha waaweyn ee Shiinaha iyo dalalka kale la midka ah ayaa gabi ahaanba burburiyay wax soo saarkan maxalliga ah waxaana sidaas ku burburay hab nololeed iyo il dhaqaale oo ay ku tiirsanaayeen qaybo dhan oo ka mid ah beesha Gabooye farsamada birta ama tumaalka ayaa iyaduna ka mid ahayd xirfadaha ay bulshadani ku shaqaysan jireen inkastoo uu ka muuqdo dib u dhac weyn oo ayna la jaan qaadi karin baahiyaha ballaadhan ee bulshada casriga ah haddana waxaa weli nolol maalmeedkooda kala soo baxa qaybo ka tirsan beeshan waxaan ka shaqeeyaa farsamada gacanta sida farsamada girgirayaasha ama birtoo kale sida gudmaha marashiyada waxyaalaha reer miyiga haweenka beesha Gabooye ayaa haddaba iyagu ah laba jeer dulmanayaal xuquuq iyo fursado badan ayay ku seegaan dumarnimadooda maadaama mujtamaca Soomaaliyeed uu yahay mid rageed oo awoodda inteeda badani gacanta ugu jirto ragga taas iyaga waxa uu dheer takoorka iyo liidista ahaanshahooda ee ragaadisay guud ahaan beelaha ay ka soo jeedaan labada nugeyle isbiirsay ayaa toos u saameeya fursadahooda nololeed haweenka beesha Gabooye waxay la kulmaan caqabado aan waajihin ragoodu anigu dad badan oo waxaan garanayaa imika siiri matalan shaqaysta oo suuqa Hargeysa meherada ka furto dhaqaaleysto kareysta ama bakhaaro kale ama meelo bishaaradii adigu ama waxaan kaasa hablo badan oo waliba reerkayga oo garanaya isiri furta oo meesha kareysta qolama taybaa lagu yiri markii meeshii ay baayacday ee qiimihii loo sheegay dilaalkii u soo helay ee reerkii la kulmeen ay tiri waxaan doonayaa in adiga kareysaan markiiba qoladii la wax ku jiro qolamaad qoladaas aan habeed
waaye waa si wanaagsan waan kaa kareynaynaa furihii baa maqan waqti kale nagu soo noqo ama galabtoo kale waqtigii bay ku noqotay wax lagu yidhi waa la kareystay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 toona maaha lagamaba kareeyo imika haddii gabadh imika wax haysataa ay timaado istirada suuqa hargeysa meel ka furo lagamaba kareynayo waxaba loo haystaa wax dadka cuna wax dadka dhaca wax maxay hayto dadka malaha qaata ma garanayo wax kale ay ka aaminsan waliba ma aha Soomaali oo dhan ma waliba khaasatan Soomaalina ay dhibka ugu badan ka jiraan xirfadahan wax soo saarkoodu liito sababaha loogu sii dhagan yahay waxaa ka mid ah in bulshadani aad ugu hooseyso dhanka waxbarashada xaaladdu inkasta oo ay soo taraysay sanad walba haddana weli way yar tahay carruurta beeshan ee dugsiyada aada waxaa ka sii yar inta ka aflaxda ee hana qaada taasina waxay aad u xadidaysaa karaankooda horumar iyo fursadahooda shaqo ee mustaqbalka maadaama ay caato gaabsheen xirfadihii ay bulshadani ku shaqaysan jirtay bulshadani waxay u badan tahay danyar waalid badan oo waxbarasho la jecel ubadkooda ayaan tahli karin inay dugsiyada u diraan carruurtooda taas cagsigeeda carruurta oo da'yar ayaa bilaaba xoogsi iyaga oo ku shaqaysanaya farsamooyinkaas dheefta yar iyo kuwa kale oo aan dhaamin waxaana mar kale bilaabanta meertada qadmuun ee saboolnimada iyo horumar la'aanta waxa weeyaan ninkani hadduu yarkan buug iyo qalin u soo helo oo jaamacadda iyo dhulka ka bixiyo inta badanna dawladdaaba ka bixisaba ma fahatay iyo dadka facaal khayrka ah iyo dawladda hoose iyo dadkaasaa ka bixiya oo dad waxaya maaha oo imka ninka 5 carruur dhalay ma masaariiftoodii buu ka fikiraa mise wuxuu ka fikiraa muxuu ahaa waxbarashadooda carruurta beeshani dugsiyada markay yimaadaan waxa ay la kulmaan caqabado asaagooda bulshada inteeda kale ayna waajihiin isdhexgalka bulsho oo aad u yar awgeed carruurtani inta ayna gaadhin da'da dugsiga wax xidhiidha oo buuran lama yeeshaan bulshada kale balse dugsiyada markay yimaadaan judhiiba waxay toos isu arkaan takoorkii iyo faquuqii ay awal gabaadka kaga jireen marka samuurada waxay ku qorayaan midigaan hebel samuurada ugu qorayaan bakti hebel jaamacadda dhiganay laftirkeeda 2014 niman saaxiibanahan xasuustaa maran sirka karbaashni ugu dhimaado gowayada aniga caynka ay hadlaysa markaasaan ku aniga gowaya wax digaga fadli badan tahay sheego wax digaga fadli badan tahay intaan ku hadlay ka hadlayso oo way jirtaa laakiin se waana la kulmay oo ana jaamacadda dhiganaysaan ku sheegay ayaan la kulmay oo laakiin se nin iska dhiga xiran aan waxaasanay runtii uu isagu jiljilisanayn ayaan shakhsiyan markaan kula wax weyn nin adag ma meesha ka soo bax inta kale way yacdo iska hadha waxbarashada dhibaatada wax weyn dhalinyaradaas ku hayso iyo bulshooyinka kale ku hayaan awgood waxbarashada uga hadha isbedelo ayaa ku yimaada dhaqanada bulshada markasta oo waayaheedu gadismo oo ay la soo darsaan xaalado kala guura oo waaweyn dabayaaqadii qarnigii 19aad iyo bilowgii 20aad ayaa bulshada Soomaaliyeed la kulantay kala guuryo noocaas oo kala waxaa soo digay guumeystii reer galbeedka isla markaasna waxaa bilaabmay magaalo gal xoogan hab nololeedkii reer guuraaga ayaa markii koobaad taariikhda casriga u muuqday mid laga baxayo bartamihii qarnigii 20aad Soomaalidu waxay heshay dawladnimadii casriga ahayd ee ugu horeysay beelaha gabooye marna kamay maqnayn isbedeladaas oo magaalo galka iyo dhaqdhaqaaqyadaas oo dhan qayb ay ka ahaayeen magaalooyinka ayay soo degeen oo dadkii ugu soo horeeyay kamid ahaayeen xaafado gaar ah ayay yeesheen liqsanaantii ayaa isdhintay waxaana ilaa xad hoos u dhac ku yimid nugeylkii bulshadan iyada oo ka baxday ku tiirsanaantii bulshooyinka kale isururkii iyo naginimadii bulshada ee magaalo galka ayaa fursad dheeraad ah u abuurtay wax soo saarkii xirfadlayaasha beelahan maadaama ay magaaladu tahay goob dynamika oo hibada iyo wax soo saarku ay muujiyaan qofka waxa beelahan ka soo dhex baxay dad qiimo weyn ku dhex yeeshay bulshada Soomaaliyeed fanaaniin caan ah iyo dad kale oo bulshada magac ku dhex leh ayaa judhiiba ka soo dhex baxay waxaan ugu soo maray Cumar Duulayna soo maray naxariista janaalaas iyo maalmahan xamar joognay Cumar dadka xoroobay buu ahaa wuxuu ka sheekeynay isagoo maalin burca jooga oo nin ku yiri midgaan oo dabeedna maraa u dhirbaxay ninkii soo ashkatayay penal code-ka xarig bay ahayd dabeedna ninkii saajinka ahaa war maxaad ninka ma dhirbaxday waan dhirbaxay maxaad u dhirbaxdo midgaan buu yiri qalinkii baa u dhigo markaas ku yiri maad ahayn Cumarna wuxuu ku yiri bal maad nus saac noqotina dulqaato runtu halkii ku jirtaana
waa halkaasoo waxa dadkani intaasoo sannadood ay u dul qaadanayaan inagu saacahaas ayaad sheegaysaa daqiiqad ayaynaan karayn maxamed saleebaan tubaac baa jiray macallinkii madrasadii murtida iyo madadaalada ee maada cabdilaahi cabdishuwe ayaa jiray xasan diiriyaa jiray dad badan oo caynkaasoo mujtamaca qiimo ku leh ayaa dadkan ka dhashay waxay u muuqatay in dhaawac gaadhay dhaqankii takoorka hase yeeshee xaaladda dhaqandhaqaale ee bulshadan ayaan guud ahaan ka soo raynin inkastoo ay ka baxeen xaaladdii filiqsanaanta iyo ku tiirsanaantii haddana taasi ma horseedin si naansho dhammaystiran waxaa ku soo baxday riiqdii 100 sannadood oo filiqsanaan iyo hanti la'aan ah taasina waxay curyaamisay karaankooda horumar bulshada inteedii kalena way ka reebtay taasina waxay dhashay in ay noloshii magaalo galka ay la soo gasho caydhnimadii iyo saboolnimadii iyo weliba qalbi jabkii iyo hanjabkii ay bulshada iyo shucuubta ay la nool yihiin mandaqada ay kula nool yihiin ay u geysteen oo de runtii ay keeneen taasina waxay keentay maanta noloshoodan ay hadda joogto inay saameysato hadday noqoto xagga waxbarashada hadday noqoto xagga ganacsiga hadday noqoto xagga go-aan qaadashada iyo golayaasha waaweyn ee magaranaysa dee siyaasadda lagu gorfeeyo noloshaasoo dhan hadday noqoto xildhibaano lasoo saaray waayo dadkii filiqsanaantii iyo adduun la-aantii xilligaa saameynta ilaa waqtigaa soo jiitamaysay ayaa hadda la soo gaadhay marka ma kari karaan maanta intay soo ururaan inay hal xildhibaan doortaan tusaale ahaan oo kale ma kari karaan inay maanta soo ururaan inay maxay ahayd ganacsiyo waaweyn oo ay dadka kale ku muquunayaan ama ay masaloo kale kula qaybsadaan nolosha ay abuuraan taasi waxa weeyaan raadkii hore halkaa ka yimi bay ay daba socotay run ahaantii muddo dheerba may qaadaan inuu soo baxo raadka saboolnimadaas hore dhammaadkii kontameeyadii qarnigii 20aad ayaa bulshadan laga raray xaafadoodii koobaad ee magaalada Hargeysa iyadoo loo arkayay in danyaraantoodu ay dilayso bilicda faras magaalaha 60 sannadood kadib magaaladii Hargeysa way kortay bulshadii kale ay la deganayeen baa horumarkaas dhaliyay una aayay nasiib darrose beelahan gabooye way ka qatan tahay horumarkaas wax la taaban karana kuma laha dadkii ay aqal Soomaaliyada la wadaageen ee magaalada deganaa waa dadka fooqaqa iyo guryaha waaweyn iyo markii aqal Soomaaliyada la reeray leeyahay ku farxin magaalada centerkeedii guryo 2 maqsin oo sakada oo dhaadheer ayaa ku xigay labadii maqsin baa 3 noqday saddexdii baa 4 noqday afartii baa guri bangala ah noqday dabeedna fooqana xigay intaasoo qaybood oo la soo maray ayaanay waxba ku lahayn biritan waxa laga yaabaa inay u xigto in lagu yiraahdo magaalada centerkeedii baa taaliin oo afwan xuntiine guura oo la raro hadii loo helo de meel la geeyo marka isbedelka dhacay kaasoo ahaa Hargeysa ku dhacay ee ay ka qatan yihiin ee ay iyagu sii degayeen kolba xaafadda daamiye 60 sano ka hor la dejiyay bulshadan ayaa weli astaan u ah sinaan la'aanta beeshan iyo qaybaha kale ee bulshada Soomaaliland inkastoo ay ku jirto xaafadaha ugu guunsan magaalada ilaa hadda waa ugu horumarka yar magaalo madaxda Soomaaliland waxay xagga hore kaga jirtaa dhanka amni darrada dambiyada iyo arrimaha la xiriira hooseynta xaaladda dhaqan-dhaqaale waxaanay ugu hooseysaa dhinacyada dhaqaalaha waxbarashada iyo adeegyada caafimaadka iyo guud ahaan horumarka xaaladda guud ee xaafadda daami waa midaan deendhaha laga qarsan karin oo dee waxyaabo badan ay ka taagan yihiin iyo baahiyo badan ha ugu horeeyo baahiyaha caafimaadka waxbarashada dhaqaalaha waxaa iska jira dee waxyaabo badan oo bulshadan hortaagan oo dhibaatana ku ah 30 sano ay Soomaaliland jirto dayac badan iyo dhibaato badan way tirsanayaan dadka ku noolay cid wali iska xil saartay amba isxil qaantay oo ay ka go'an tahay in ummadda maanta wax u qabtaan ma aragno takoorku sidiisaba waa laba nooc mid muuqda oo qiyaxan iyo mid dahsoon ka muuqda muddabaha qadatay waa laga dhiidhiyaa oo waa laga dagaalamaa balse ka dahsoon ee durxulka aad ayaa loo dhayalsadaa haybsooca Soomaalidu waxa uu badan yahay kan hore balse guurka ayaa halka uu sida gabashada lahayn ee qiyaxan uga muuqdo waana halka dhabahaan muujinaysa fikradda uu ku salaysan yahay takoorku taasoo ah in Soomaalidu ilaa hadda ay garowsan laadahay in beeshani la siman tahay
iskata ka iman haddaan heebtaadi soo helay hay oran iskata ka iman haddaan heebtaadi soo helay. taas waxay ku cabirtaa Soomaalidu weedha isma geyno oo macnaheedu yahay in hablaha iyo wiilasha beeshani u dhigmin ayna geeyaan oo ahayn asaagooda mujtamaciintiisa kale. dhibaatooyin fara badan oo gaadhsiisan tacadiyo jidheed ayay la kulmaan wiilasha iyo hablaha beelahan ee calmada dhigooda ka soo jeeda reeraha kale ee Soomaaliyeed. garaacis, xadhig iyo dayrin intaba way ku mutaan raacidda dookooda lamaanaha. dhacdooyin dhowr ah ayaanu la kulanay intii aanu ku guda jirnay hawsha warbixintan, balse dadyowgaasi way naga cudur daarteen iyagoo ka cabsoonaya dhibaatooyinka soo gaadha. ugu dambeyntii qoys degan xaafadda Daami ee magaalada Hargeysa ayaa ku dhiiraday inuu noo warramo. waa qoyska Jaamac Khadar Cabdilaahi oo ka kooban sayga oo ka soo jeeda beesha Goobooye iyo xaaskiisa. nasiib darro maalintii ballanteedu ahayd ayaa Jaamac xaaskiisii iyana naga cudur daaratay. marwadan oo magaceeda sidaas awgeed aanan xusaynin waxay noo sheegtay inay ka baqayso hagardaama uga timaada qoyska ay ka dhalatay. nasiib wanaag Jaamac Khadar isagoo cabsidaas ma qabo, waxaanu nooga warramay sheekada guurkiisa. waxaan isku baray magaalada Hargeysa, waxaan barashada ka sii bilaabtay xaafadda aan ku wada sheegtan jirnay si dhuumashaa. markii dambe ilaa noloshayda ay gaadhay guur, inaan isguursano. guurka waan u badheedhnay inaanu dhibaato badan amba xadhi kala kulmano amba dil kala kulmano, laakiin ilaahay mahad wax dhibaato naga soo gaaray ma jirto. waan markaas ku faraxsannahay. laakiin markii arooskayga uu dhacay cid xaggooda ka socota oo arooska ka soo qayb gashay ma jirin, laakiin bulshada xaafadda aniga xaggayga aan ka soo socoton baa arooska ka soo qayb gashay. 8 sannadood kadib iyo dhowr carruur oo xaaskiisu u dhashay, Jaamac Khadar weli isma sheegtaan qoyska ay ka soo jeeda gabadhiisu. wala fahamka islaam xidhno amana soo booqdaan naguna ma booqano. inuu dhibaatadaas waa dhibaato waxaa fiicnaan lahayd adigoo malaha xaggay ka soo jeedona la yar dareema fiicnaan lahayd. dhibaatadan de mar haddaad magaalada Hargeysa ehelka oo dadkaad xididka haydoon waad isgaranayn oo iskala salaamu calaykum baad booqanayn oo kala dhibaato aad weyn baa. sinaansho la'aanta dhaqaale marka laga yimaado kala guursi la'aantu waa astaanta ugu weyn haybsooca. dhaqanadii la xidhiidhay haybsooca waa ka ay ugu adag tahay in la jabiyo ilaa hadda. bulshada inteeda kale iyo indheergaradka beeshan ayaa labadooduba u muuqda kuwa sugaya in dhaqankani iskii u baaba'o. dhanka kale marka laga eegana ka maqnaanshaha beeshan ee golayaasha talada ummaddu waxay curyaaminaysaa doorkii dowladdu ay ka qaadan lahayd cidhibtirka dhaqankan. jirda Siciid Axmed waa xildhibaanka keliya ee ka soo jeeda beeshan ee ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Somaliland. mar aanu kula kulannay xafiiskiisa waxa uu noo sheegay in maamuladii kala dambeeyay Somaliland ay gabi ahaanba ku guuldarraysteen doorkii ay ka qaadan lahaayeen baabiinta dhaqankan. kan waa dastuurkii Somaliland. dastuurkii Somaliland weeyaan waxa ku jira qodob ka hadlaya iyaga ka hadlaya. qodobkaasi waa qodobka 8aad. qodobka 8aad dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland farqadiisa labaad waka waxay leedahay kala sarreynta iyo takoorka ku salaysan isirka, abtirsiga, dhalashada iyo deegaanku way reeban yihiin, isla markaana barnaamijyada lagu ciribtirayo dhaqamada xunxun ee soo jireenka ah waa waajibaad qaran. ay farqada labaad tilmaamaysaa ee qodobka 8aad dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland. macnaha dhaqamada xunxun ee soo jireenka ah ee dadka lagu cadaadiyo ee lagu dhibaateynayo ee horumarka u diidan ee ragaadiye muddada soo dheer soo jiray. sharciga Somaliland meel buu saaray waxaanu waajiga Jamhuuriyadda Somaliland. xukuumad kastoo timaada kuma dhaqanto. xukuumad kastoo Somaliland timaada soo marta qodobkan maba soo hadal qaadaan. si kastaba ha ku bilowdee waxaa hubaala inta koorku riiq weyn uu kaga tegay bulshadan dhibanaha u ah. dhaawacyo nafsaaniya iyo juwa gaadhay ubuucda ahaanshaha xubnaha bulshadan ayuu reebay.
waxa uu dhaliyey sinaanshiyo la'aan ku salaysan qaab dhismeedka mujtamaca Soomaaliyeed oo xubnaha beelahan ku xukumay hooseyn dhaqan dhaqaale. isbedeladii waaweynaa ee Soomaalida soo maray qarnigii tegay ayaa wax badan ka bedelin sinaanshiyo la'aantaas qaab dhismeed. su-aasha ayaa haddaba ah dhaqankan soo jireenka iyo saameyntiisa baaxadda leh sidee loo furdaamin karaa. nasiib wanaag bulshadan uu taabtay ayaa diyaar u ah inay hormuud ka noqoto xalka. xuluusha ay u soo jeedinayaan dhibaatooyinkan haysta ayaa intooda badani ah kuwa ay iyagu doonayaan inay ka shaqeeyaan. markaa 95% waxay ku xidhan tahay ummadani inay xaqeeda hesho, inay iyadu gudaheeda abaabul iyo wacyigelin iyo midnimo iyo wadajir weyn ay sameeyaan oo tala yeeshaan. waxaan isleeyahay xalku meelahaasuu ku idlaanaya. anugu ma aaminsani inay Soomaali intay isku tirtoonaysan reerka waan cafinaynayo dhibkan ka qaadana. adduunka ma ka dhicin ba wixii taariikh soo maray adduunka hadday Mareykan tahay hadday Carab tahay hadday adduunka oo dhan taariikh soo maro dhan ummad walba ila dhibka sakicisay, ummad walba ila xoreysay, ummad walba iyada la tibid asbaabihii guusha ay ku gaar lahayd. ummad hay'ad wuxuu siinaysaa ma jirto. waxaan qabaa bulshadana inay isku tashato aysan hadda ay ku jiraan wax badan ka bedelaan. bulshadana inay fakarto qurba joogtoodii qolqol joogtoodiba maynaradan laga baxo lagu fakaro sidii ummadan loo xoreyn lahaa, dhaqan ahaan, diin ahaan, aqli ahaan, dhaqaale ahaan loo xoreyn lahaa. ummadana ay noqon lahayd ummadaha la mid ah iskuna tashan lahayd. ta laga bixi karaa waa taa weey. waxa kale xalku ila muuqdaa midnimo gudahooda dadka wax tirsanayaan ka soo jeedo ama hal hayb soco ama meesha la yiraahdo waa midgo ama hal yiraahdo xuquuqdooda waxa ku waaya in iyagu isku dubnaadaan oo mid ay noqdaan. haddii unitygooda iyo cududooda iyo aqligooda uu mid noqdo xaqooda iyo xuquuqdooda way soo dhici karaysaa. waa qodob kale inay Ilaahay tala saartaan. qodob kale haddii libinta helaan way guuleystaan oo Ilaahay sharaf siiyo oo Ilaahay darajo siiyo inaanay aargoosanin oo dadka wax ka tirsanayeen aanay ka aargoosano gobonimadii iyo sharaftii Nabi Yuusuf oo kale ay qaataan oo saamaxay la yimaadaan. qodobka saddexaad in aqoontooda ay dhisaan. qodobka afraad in adduunkooda ay urursadaan. qodobka shanaad in ufuqoodii aragtidoodu uu intan maanta uu taagay uu ka horeeyo. qodobka shanaad qofkii iyaga wuxuu qabanayaa ee bulshada kale ay wax ka tirsanayaan ka soo jeeda nabarka iyaga damqaya dareema iyo ka iyaga ka tirsanay uu halgamayaba inay garbaha qabtaan oo runtii ayna hegeldahay. qaacidadaas waxay anfacdaa ama waxa weeye wax ka tartaa inay dadkan soo jeestaan xaqiiqada dhabtan marka waxa weeye qaacidan ba kala hadlaysa iyagaana waxay u gaartay. marka qaacidan waxa oranaysa bulshadani marka hore way noqdaan tacliinta waa in ubadkooda la baraa oo tacliinta la baraya tawxiidka ka horeeyo in kitaabka Ilaahay waxa weeye la baro oo diinta la baro ayaa koow ah. laba in tacliinta kale la baro oo tacliinta kale la baraya ay noqoto tacliin ah in waxa weeye ay ka soo baxaan dadkii baahida bulshadu u qabtay oo injineerkii specialistiga ka soo baxo oo dhaqaatiirta ay ka soo baxaan oo waxa weeye maxaan ku raadayay professoradii ka soo baxaan oo culumadii wax weydiinta loo daba fadhiisanayay wax weeye maxaan ku raadayay ay ka soo baxaan in dad noocaasi oo dadkii foolaadkii bulshada ahaa ay ka soo dhex baxaan. waxa weeye in la helaa waa mid iyaduna meesha ku jirto muhiima. in groupkan markaa shaqaysanaya ee wax baranaya waxa weeye bulshada soo dhex galay in tacabkooda noqon tacab dhigasho leh oo aanay noqon sidii dee waxa weeye dadkii ka horeeyay ahaayeen shilinka waxa weeye markay shaqeeyaan dee wuxuu afkaan u dhaafeen laakiin noqon tacabkooda tacab dhigasho leh si ay bari uga maarmaan haddii ay wax waayaan ama waxa weeye ay waxooda markay isbiirsadaan dee ganacsiyo kale iyo horumar kale waxa weeye ku sii hana qaadaan. markay saddexdaa helaan waxay noqonayaan dad tiro yar oo tayo leh bay noqonayaan oo dunida iyaga ugu jaanis fiican maanta oo dadka tirada yar baa inta badan istirsada oo is urursada oo waxa weeye inta badan waxa weeye iska warhaya. ummadana hadday doonayaan inay noqdaan xor Soomaali ka noqdaan
ha ka kacaan fadhiga ha iska riixaan hadiyad cudaysan mayso Soomaalidu waxay mar walba la dareen noqotaa dhibanayaasha takoorka iyo cadaalad darrada ka jirta caalamka cunsuriyadda ay la kulmaan dadka madow ee wadamada galbeedka qadiyadda Falastiin Myanmar iyo qaar kale oo badan ayay si weyn u daneeyaan oo uga xumaadaan gobonnimadaas iyo dhaqankaas xariirta ah waxaase burinaya Soomaalidu inaanay beri ka ahayn dulmi kuwaas la mid ah quursi faquuq iyo haybsooc midabo badan ayaa bulshada Soomaaliyeed ku haysaa beelo kamid ah oo la wadaaga diinta deegaanka iyo dhaqanka abidkoodna ka tirsanaa qoyska Soomaaliyeed haddaba maxay daaran tahay isdiidadani maxay u kala tagsan yihiin falka iyo qowlka Soomaalidu maxay u arkaan takarta saaran dadyawa kale oo qura ma la gaadhay bay kula tahay xilligay Soomaalidu dib isugu noqon lahayd inta ayna cid kale faraha ku fiiqin maxaa diidaya in walaalahood u xaqiijiyaan himiladan kooban ay la jecel yihiin shisheeyaha iyo shucuubta caalamka oo dhan dariiqa markaan marayo waa inaan u socdaa si barowda oon dareemayo inaan xaqayga helayo inaan cid igu xadgudbayn aan cid ku xadgudbayn waxaan doonaan helayo inantaan isjeclaano guursanayo mahradaan doono aan dhisanayo customerskaygu aanay qabiil waxba igaga iibsanayne laakiin quality-ga alaabtaan hayay ku iibsanayaan it takes time waa hubaal in xaqiijinta himiladaasi waqti u baahan tahay laga yaabaaba waqti ka dheer cimrigayaga iyo kaagaba balse xalka ayaa la bilaabi karaa xanuunka dulmiga ayaa ugu horreyn la garwaaqsan karaa garowshiya in laga bixiyo ayaa lagu xigsiin karaa waxaan iyaduna meesha ka maqnayn in la garab istaago bulshadan iyadu u heelan inay ka hinqato hagardaamooyinkaas gaadhay waa dabadheer iyo hayaan bulsheed oo aan sahlanayn mid u baahan isla xisaabtan damiir iyo dhiiranaan akhlaaqeed balse abaalmarintiisa ayaan wax loo dhigaa jirin waa waxaan ka yarayn gobonnimada iyo xalaalnimada idilahaan mujtamaca Soomaaliyeed بشر كل ميزانهي أبني آدم بانتهي